ربي ونبينا كالقعيل كنور كيسا نقبوحي قلوبتا نقبوحي قلوبتا رمضان كريم دمان داودياشنا قيمها iyo qadinta mudan oo kuna soo dhawaada barnaamijkeeni su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV barnaamijkan ayaa noqon doona mid socon doona 7 bisha Ramadaan taba barnaamijkan ayaa noqon doona mid aan dadka ku weydiin doono su'aalo kala duwan kuwaas oo isugu jira diini dunawi dhaqan iyo waliba aqoon guud barnaamijka ayaa waxa iska kaashaday taabagalkiisa oo suurta galiyay Shakal TV iyo sidoo kale shirkadda Abqa Company haatana waxaan ku suganahay bartamaha suuqa weyn ee caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaanuna u soo baxnay sidii aanu su'aalaha u soo weydiin lahayn bulshada ku dhaqan caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga haatana su'aalaha ayaan soo weydiinaynaa la socod wanaagsan ugu horreyn marka hore oo ku soo dhaweynaya walaal waxaad qayb ka tahay ama aad ka qayb qaadanaysaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV barnaamijka waxaa iska kaashaday Shakal TV iyo sidoo kale shirkadda Abqa Company bal marka hore barnaamijka seed u aragtaa walaal barnaamijka horta waxaan u arkaa barnaamijka maadaama lagu jiro bil Ramadaan inta dadka su'aalo laga faa'iideeyo oo waxyaabaha faa'iido ugu jirta bulshada soo dhaxdhigo wax wanaagsan maxaad rajaynaysaa kulli su'aalaan ku weydiin doonaa su'aalaha haddaad haleeshid ama aad jawaabtooda saxda ah heshid waxaad mudan doontaa ama aad qaadan doontaa inaad heshid hadiyad ay kugu tala gashay shirkadda Abqa Company bal maxaad rajaynaysaa marka hore intaan su'aasha ku weydiin kulli guul ma rajaynaya khayr ma rajaynaya waayahay waxaan ku leeyahay marka hore Ramadaan Kariim oo ku soo dhaweynayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaad noo sheegtaa magaaladii uu ku dhashay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan magaaladii ku dhashay magaaladii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ku dhashay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan Soomaa رمي كل شيء تلاحني تلاحب كل شيء وي بضبطة صابون مليني يقول لي هذه بضبطة ستة سؤال سيادة أمانة هليلين وحرب إنا كوب بدلو أنا سؤال وح كوب بدل يا سؤال كلا ديني واحد شاكتا صلاة يلان كرتا صدح التحيات ومغرب ما بطا ما تكجوكت أنا هذا مغرب كوين تايا أكبر مسا وي سيديكو يلا صبرك صدح التحيات لا ده هاي صوتها حوالي صالح حد كسو قاري كريسا موقتها التحيات لي هوري التحيات كهورت كسو قاريسا هاي والله تحيات ستي وي يا دانا در عادي دمر كسوت كتوا والله تحيات سنة سوا قصد التحيات كهورة هداد كسو قاري هاي وحقا يرى تفصيلي أو شرحات كبحي بيدي معناها لبار عوض قهرية عيار عدد دم كسو قاري ولدت كنت ولا تحيات السماح كدي بمركي لسوقعه أنا رجع عدد دم بلد كنيا ولا تحيات ستي تي دم بلد كنيا ولا تحيات سنة همبلي أيام كلها هاي جوابتها سيادة أواضح على شيء وليبا سيدي أقوها بوند أياد أفسرتي وحن كلها هاي أذيات بدون ما صرتي وانكوها همبليين يا واحد مضتي محل ده هاي abaalmarintii ay kugu talagaleen Shakal TV iyo sidoo kale Abqa Company haddana waxaan ku guddoonsiinayaa abaalmarinta aad mudatay waxaad mudatay abaalmarinta ay kugu talagaleen shirkadda Abqa Company iyo sidoo kale Shakal TV waxaan ku leeyahay iga guddoon waxa kaaga soo baxana gurigaaga la tagi doontaa inta aanad dhaqaaqin bal marka hore dareenkaaga seed u aragtaa نيو هرت أياد بانو بفرح سنة دام برنامج كده سها إحنا كل جوليستي أياد بانو سلوين أنا بفرح سنة أياد بدو ما صنتهاي أن abaalmarinta aad qaadatay waxa iska kaashaday Shakal TV oo laga wareysanaya iyo sidoo kale shirkadda Abqa Company maxaad leedahay labada shirkadood ama aan idhaahdo shirkadda iyo TV-ga نيو هرت labada shirkadood waxaan leeyahay hore Soomaal leeyahay barnaamijyada noocan oo kale aan sii wadaa marka aad ma sinti ma leeyahay aad ma صنتهاي الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horreyn walaal marka hore waa ku soo dhaweynayaa waxaad qayb ka tahay barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakal TV marka hore waa ku faraxsan inaad ka qayb qaadatid ama nagala qayb qaadato barnaamijka waa ku soo dhaweynayaa marka hore adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya بسم الله واد ما سنت أنا أحمد نور شعلدي ولا هذا برنامج كشكلنا هذه أدو ما سيء سيدا في عن وبرنامج كرمضان كهو قادنا دنيرتي يدت كبه يسوق كبه
waayahay waxaan ku weydiin doonaa su'aalo kooban su'aalahaas haddaad haleeshid waxaad mudan doontaa abaalmarintaas oo ay fududaysay shirkadda abqa company iyo sidoo kale shakaal tv ay iska kaashadeen marka hore waxaan ku leeyahay rabadaan mubaarak waan ku soo dhaweynaynaa waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo su'aashaas oo u dhigan sida tan waxaad noo sheegtaa magaaladii uu ku dhashay sayid maxamed cabdilla xasan halgamaagii weynaa ee soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan بسم الله الرحمن الرحيم wuxuu ku dhashay buuhoodle agteeda buu ku dhashay halgamaagii weynaa ee sayid maxamed cabdilla xasan meel ka mida buuhoodle agteeda ayuu ku dhashay waxaan rabnaa inaad noo sheegto yacni buuhoodle waxaad xustay inaad aaminsan tahay buuhoodle ku dhashay bal buuhoodle laftirkeeda dee ma buuhoodle laftirkeeda ku dhashay aduu yacni tafsiil meesha magaceeda inaad xusto haa buuhoodle lafteeda ku dhashay may subtaa ku adkaysanaysaa haa maadan haleelin su'aashaas iyada waan ka xunnahay waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaya ka qayb qaadashadaada adaa mudan aad iyo aad baad u mahadsantahay shakaal tv aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale aad أي صح الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horreyn walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaad qayb ka tahay ama aad ka qayb qaadanaysaa waa barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee shakaal tv marka hore waan ku soo dhaweynayaa saad u aragtaa barnaamijka والله aad iyo aad baan meesha ugu dhowahay waana barnaamij fiican oo dhiirigelina waana sidoo qurux badan u socdana dee waa ku dhiirigelinaya dhammaan iyo dadka wadaba waayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay dhiirigelintaada waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu horreysa waxayna u dhigan tahay sida tan waxaad sheegtaa halgamaagii weynaa ee soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan magaalada ku dhashay waxa uu ku dhashay ya imey kee weysay maxaa cabdilla xasan sooma waxaad noo sheegtaa magaaladu sayidku ku dhashay sayid maxamed cabdilla xasan magaalada ku dhashay noo sheeg imey baan malaynaa ya imey waxaa jira deegaankeena soomaalida waxaa ka jira laba imey bari iyo imey galbeed midde dee saas haddii imeyda lasii keenay oo lasii kala qaadayo waa meesheeda ma garat marka ma igu raacsan tahay deegaankiinu laba degmo oo labaduba laba imey la yidhahda inuu ka jiro imey ahaan baa u aqaan waxaa jira laba imey labadaas waxaa la kala dhahay imey bari iyo imey galbeed waxaana kala badha webiga shabeelle marka isku soo wada duubo adigu midaad yani imey un maad leedahay ani imey baa weliba haddii aad imey baa ku dhigsanaysaa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga aad iyo aad u mahadsan aad baad u mahadsan meheliniya amaan helin aad iyo aad الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horreyn walaal marka hore waa ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka shakaal iyo weliba barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee shakaal tv marka hore adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya maxamed yuusuf baa la yidhaha walaalo magacayga waayahay maxamed yuusufow waxaan ku weydiin doonaa su'aalo kooban su'aalaha haddaad haleeshid ama aad su'aasha jawaabteeda saxda aad heshid waxaad mudan doontaa ama aad qaadan doontaa abaalmarintaas oo ay kugu tala gashay shirkadda abqa company marka hore bal sideed u aragtaa barnaamijka intaanan su'aalaha ku weydiin aad baan moogtahay yuu fiican yahay barnaamijkan iminka moogtahay aad i weydiinaysid marka waxa weeye su'aalaha dee waad i weydiin kartaa su-aashu waxay ku leedahay waxaad noo sheegtaa waxaad sheegtaa xilligii la waajibiyey sanadkii hijriyada ee la waajibiyey soonka noo sheeg waxa weeye bishii maxaa la yidhaha iga soo sheegay bisha rabadaanka ma bishii la waajibiyey waxaa jira soonka waxaa jira sanadka hijriyada taariikhda hijriyada waqtigii la waajibiyey baan rabnaa inaad noo sheegto weliba sanadku ahaa 1900 ama ayaa malaa la waajibiyey intaa ma banaan u garanaya 1900 maxay ya 1900 iyo imsadii 16 bilood ee hijriyada okay aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaya ka qayb qaadashadaada ma su'aashana maanad haleelin aad baad u mahadsan tahay الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horreyn marka hore walaal waa ku soo dhaweynayaa bal marka hore adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya walaal magacay saddexan cabdi aqal cartan cabdi aaqilow marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee shakaal tv barnaamijka waxaa iska kaashadaan idhaahda shakaal tv iyo sidoo kale shirkadda abqa company waxaan ku weydiin doonaa su'aalo kooban su'aalaha haddaad haleeshid waxaad qaadan doontaa ama hadiyad ay kugu tala gashay shirkadda abqa company bal marka hore sidee u aragtaa barnaamijka intaanan ku weydiinin su'aalaha yo waa soo dhaweynayaa hambalya baan leeyahay inkastoo mid marka koowaad ii tahay aad baan u soo dhaweynayaa wakaas
hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah waxaad noo sheegtaa taariikhda hijriyada ciddii aasaastay ama tirsigeeda ciddii hirgelisay iyo adiga taas kuma beegi karo ya taas hada kuma beegi karo i bedel maxaa tiri walaal codka uu xoraa karo fiira qaad taa i bedel may isku day anaa ku bedeli doona dhawaane may hadda aan ku weydiiyo aan kugu celiyo su'aasha waxay ku leedahay waxaad sheegtaa taariikhda hijriyada ee hadda la tirsado qofkii maxaa la dhahay tirsigeeda maxaan idhaahdaa tirsigeeda hirgeliyey tirsigeeda hirgeliyey may ima hadda taas hadda weli ma halalsani way aad iyo aad baad u mahadsantahay ayo idinkaa mudan الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horreyn walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV marka hore bal magacaaga saddexan ku bilow iyo barnaamijka sidaad u aragtay barnaamijka walaal waa si fiican magacayga waxaa la dhahaa Ibrahim Maxamuud Muuse way Ibrahim Maxamuud Muuse sidaad u aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV waa si fiican weeyaan su'aaluhu iskoo banaanba waxa weeyaan ay faa'iido iyo waxa laga helayaa waxyaabo badan oo maskaxiyan ah marka aad baan u soo dhaweynaynaa hagaag sidoo kale anaguna waan ku soo dhaweynaynaa su'aasha ugu horeysa haddaan ku weydiiyo waxay ku leedahay waxaad sheegtaa sanadka hijriyada qofkii yacni in la tirsigeeda hirgeliyey ama jideeyey sanadkii hijriyada haye يعني واحد شيكتا ان سنة كهجرية قفكي يعني سوق هرجلي ترسج هذا qofkii hirgeli qofkii hadda hirgeliya taas oo iga waxaysan oka haashimara haashimara ma leedahay way bal waxoogaa isku daygu wuxuu ka wanaagsan yahay isku day la'aanta macnaha su'aasha la isku day baa li waa jawaabta barkeed hijriyadu deeniya uu kala saaro waqtigii macnaha jihaadku taagnaaba sideedaba waxay taariikho horta way farbadan yihiin waxaa jirta taariikhda Gregorian-ka la yiraahdo oo Yurubta ay tirsadaan waxaa jirta taariikhda Ethiopia ay tirsato tan yani Ethiopian calendar-ka waxaa jirta sidoo kale taariikhda Islaamka ee hijriyada taasan kala hadlaya marka taariikhda Islaamka hijriyada Islaamku tirsadaan hadda sidoo tusaale ahaan hadda bil Ramadaan baan ku jirnaa waxay kamid tahay sanadka hijriyada kamid tahay marka sanadka hijriyada taariikhda Islaamka waxaad noo sheegtaa ciddii hirgelisay sanadka in la tirsado niyo ciddii hirgelisay yani taariikh kasta waxay leedahay cid aastay meel ay ka soo bilaabantay aad iyo aad marka qofkii bilaabay tirsigeeda waan fahmay laakiin jawaabta ma hayo aad iyo aad baad u mahadsantahay kaaga mahad celinaya ka qayb qaadashadaada ay sidoo kale الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horreyn walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV marka hore adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya kaad cabdi muxtar baa leeyahay ya kaad cabdi muxtar baa leeyahay way kaada waan ku soo dhaweynayaa mar kale sidoo aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV aad iyo aad bay u fiican yihiin aad iyo aad hagaag intaas madaan ka imaado shakaadow halkan waxaan ku wadaa abaalmarin ama hadiyad ay ugu talagashay ka qayb qaatayaasha shirkadda Abqa Company haddii aad ku guuleysato ama aad haleesho jawaabaha saxda waxaad mudan doontaa abaalmarinta ay shirkadda Abqa kugu talagashay marka hore aan ku weydiiyo su'aalaha waxay ku leedahay su'aasha ugu horeysa waxaad sheegtaa magaaladii uu ku dhashay halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa laascaanood laascaanood talix ya talix hay ma hubtaa ya shakiga ma jiro ma isku kalsoon tahay waa ka xumahay su'aashaas jawaabteeda ma aanad haleelin aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee uga qayb qaadanaysid barnaamijka aad iyo aad waad mahadsantihiin الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير hagaag marka hore waa ku soo dhaweynayaa walaal waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV waxaa iska kaashaday Shakaal TV iyo sidoo kale shirkadda Abqa Company waa ku faraxsanahay inaad qayb ka noqotid barnaamijka waa ku soo dhaweynayaa marka hore adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya magacayga saddexan walaal Axmed Quraan Cumar aan ku dhawahay barnaamijka
axmedow sideed u aragtaa barnaamijka su'aalaha rabadaanta shakaal t v ay fududeysay shirkadda abqo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo waan mahadsantihin hagaag aan ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa su-aashan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaaladii uu ku dhashay halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan maxaa la su-aasha buholle hay buholle ma hubtaa saasaan islaha isku kalsoon tahay saasaan islaha hagaag su-aashaas iyada ah dee buholle kolley waa meel magaceed waa laga yaabaa inay maxaa la dhahay adigu saad u maleynaysa ay tahay laakiin waan ka xunahay su-aashaas jawaabteeda saxda amaanad haleelin aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaya sidaad quruxda badan aad uga qayb qaadanaysa barnaamijka aad baad u mahadsantahay الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير hagaag walaal marka hore waan ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee Shakal TV barnaamijka waxaa taabagelisay oo fududeysay shirkadda weyn ee Abqa Company haddii aad jawaabaha aan ku weydiin doono haddaad haleeshid waxaanu kugu talagalnay shirkadda aan raahday waxay shirkadda Abqa Company kugu talagashay ama ay ugu talagashay ka qayb qaatayaasha barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee Shakal TV hadiyad ay iyadu si gaar ah ugu maamuusi doonto guuleystaha waan rajeynayaa inaad guuleystayaasha ka mid noqotid marnaba guuldarro kuma rajeynayo aan kugu bilaabay marka hore adoo soo dhawaanaya magacaaga saddexan marka hore Shakal TV aan soo dhaweynayaa magacaygu Axmed Ismaaciil Maxamed Axmed Bisha la yaqaan way bishii rabadaan ee barakasrid baan ku jiraa malaha taas lagugu magac daray waa ku faraxsanahay inaan magacaaga barto waxaan ku leeyahay marka hore bal sideed u aragtaa barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee Shakal TV horta waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa su'aalaha waxaan rajeynayaa inaad sii wadi doontaan oo dadkuna waxbay ka faa'iidi doonaan insha Allah haddii Alla ka dhigo hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay su'aashan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa sanadkii la waajibiyey bisha barakaysan ee rabadaan ama aan idhaahday soonka maalinkii bishii sanadkii la waajibiyey soonka bishii la waajibiyey waa sanadkii saddexaad ee hijriga waan u malaynayaa inay tahay barnaamijka sideedaba malaha ayaa ka xaraama kaliya qofku inuu naftiisa ku kalsoonaado oo uu hadduu haleelana ay nasiibkiisa uu saacido hadduu garan waayana uu nasiibkiisu saacido ayaa u bannaan waxaanan codsanaya inaad aniga isoo eegto waxaan ku leeyahay waan kugu celiyey su-aasha waxay ku leedahay su-aashani waxaad sheegtaa sanadkii la waajibiyey weliba sanadkii taariikhda hijriyada la waajibiyey soonka sanadkii la waajibiyey soonka sanadkii la waajibiyey horta taariikhda way iga hoos baxday laakiin taariikhda la waajibiyey horta way iga hoos baxday laakiin su-aasha ma bedeli kartaa su-aasha taariikh horta tan isku day may hadda ma xasuustaan malaynayaa garasho la'aanta laftirkeeda waa aqoonta barkeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysa idinka aad iyo aad badnaysa الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير ugu horeyn marka hore waa ku faraxsanahay inaad qayb ka noqotid barnaamijka su'aalaha rabadaanta ee Shakal TV waa ku soo dhaweynaya marka hore adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya assalaamu calaykum aniga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Cali Cabdi waxaanan u diyaarahay inaan su-aashaasi lay weydiin doono inaan isku daygeeda lahaado okay sidoo kale anaguna waa ku soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay inaad qayb ka noqotid barnaamijka marka hore bal sideed u aragtaa barnaamijka aan idhaahday waxaa iska kaashaday fududeyntiisa ama taabagalkiisa Shakal TV iyo sidoo kale shirkadda weyn ee Abqa Company haddii aad su'aalaha jawaabtooda saxda ah haleeshid waxaad mudan doontaa abaalmarintaas oo ay kugu talagashay shirkadda Abqa Company marka hore waa kugu faraxsanahay inaad qayb ka noqotid su'aasha ku weydiiyo su'aashan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa sanadkii la waajibiyey soonka ee taariikhda hijriyada sidoo kale assalaamu calaykum sanadkii labaad hijriyada bishii Shacbaan labadeedii waxba bisha ha sheegin waxba muhiim ah inaad bisha sii tafsiilisid waxa laga yaabaa bisha inaad kula dheeraato halkaas wax sax isleedahay inaad haadaan ka ridaa laga yaabaa waxba ha isku sii adkaynina waxaan rabaa un sanadka inaad ku adkaysatid sanadku kuye sanadkii labaad ee hijriyada hambalya ayaan ku leeyahay su-aashaas jawaabteeda waad haleeshay waa ku faraxsan inaad barnaamijkana qayb ka noqotid waa ku soo dhaweynayaa waxaan haddana ku guddoonsiin doonaa abaalmarinta ay kugu talagashay shirkadda weyn ee Abqa Company waxaana ku guddoonsiin doonaa abaalmarintii lagugu talagalay waad ku faraxsan inaad barnaamijka qayb ka noqotid waxaad mutaysatay abaalmarintii ay kugu talagashay shirkadda Abqa Company iyo sidoo kale Shakal TV bal marka hore dareenkaaga aad baan ugu faraxsanahay shirkadahaasi iska kaashaday su'aalaha rabadaanta waana u mahadnaqayaa Abqa Company bal shirkadda Abqo fariin maxaad u diraysaa waxaan u dirayaa shirkadda Abqo in ay ku sii dhiiranaato in ay xidhiidh la yeelato qaybta warbaahinta ee afka Soomaaliga ku hadlaysa
si ay dadkeeda u kasbato. hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay hambalyan mar kale ku leeyahay waayahay waa idiin mahadnaqaya. الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير. ugu horreyn marka hore walaal waa ku soo dhaweynayaa waa ku faraxsanahay barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV inaad qayb ka noqotid barnaamijka waxaad taabagelisay shirkadda Abqo Company haddii aad su'aalahan ku weydiin doono haleeshid waxaad mudan doontaa abaalmarinta ay shirkadda Abqo kugu talagashay marka hore bal intaanan su'aalahaaga guula gelin bal magacaaga saddexan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي أحمد عبد الإيمان كله مملكة مقالة جيجيا لما وعلى أمة المسلمين تا رمضان كريم كل عام وأنتم بالخير مرة hagaag Axmed Cabdi waa ku faraxsanahay inaan maanta ku kulanno bartamaha suuqa Jigjiga aan iraahdo caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga waxaan ku weydiin doonaa su'aalo kooban sidaan horeyba kuugu sheegay su'aalahaas haddaad haleeshid waxaad mudan doontaa abaalmarinta ay shirkadda Abqo kugu talagashay inta hore aanan mar labaad intaanan su'aasha ku weydiinin sideed u aragtaa barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV كل برنامج والله برنامج أقوم قرار سيا مسكحة لليرادي مسكحة الدوينة هذا المسلمين تا كرو قاضية مركا هتقفوا اسكتي هدو قرن وهي جوابتي ما هاي إنه فشل مسكحة تقول كنت داري إنه كنا هدو مركا أقوم قرار سيا شركة أبقى iyo Shakaal TV waxaa leeyahay ballaarin hore u wada وعادي أدنى وبوي عادي hagaag su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay ku leedahay waxaad sheegtaa halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxaan filayaa taaladiisiba halka inooga muuqata ee looga dhisay caasimadda deegaanka Soomaalida magaaladii uu ku dhashay noo sheeg magaalada ku dhashay wuxuu ku dhashay Iimay galbeed labada Iimay midee Iimay galbeed Iimay ku dhashay Iimay galbeed Iimay galbeed ku dhashay ya Iimay galbeed ku dhashay Iimay galbeed ha wadubta ha ku laaban Iimay galbeed ku dhashay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan hagaag waa ka xumahay hagaag jawaabta saxda maadan haleelin waa ku faraxsanahay ama waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadanaysid waxaan ku leenahay mar labaad soo laabo haddaad maanta haleeli weeday waxaan filayaa in barnaamijku wuxuu socon doonaa 30 bishaba uu socon doonaa abaalmarintuna sidaas bay u socon doontaa haddii maanta aad haleeli weeday inaad maalmo kale haleeshid oo barnaamijka la kulantid baan rajaynaya insha Allah الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير. marka hore walaal waa ku soo dhaweynayaa waxaa kugu soo dhaweynayaa Shakaal TV iyo waliba barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV barnaamijka waxaa fududeysay oo taabagelisay shirkadda Abqo Company haddii su'aalaha aan ku weydiiyo aad jawaabtooda saxda ah haleeshid waxaad mudan doontaa abaalmarinta ay shirkaddu kugu talagashay marka hore intaan su'aalaha ku weydiin bal magacaaga saddexan soo dhaw waa dhowahay magacay Cabdulla Bashiir baa la yiraahdaa shirkadda Abqo anaad u garanayo iyo Shakaal TV barnaamijka Ramadaanta ee bulshada uga faa'iideynayaan oo uga mahadcelinaynaa horay socdaan leena ajir iyo khayrna Allah idinka siiyo aad buu u fiican yahay markuu bilaabanayna waa la socday ilaa haddana waa la socdaa hagaag waa ku faraxsanahay inaad dadka sida gaarka ugu taxan sida maxal dhahay daawadayaasha telefishinka iyo taageerayaashiisaba kamid inaad noqotid waa ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxay ku leedahay waxaad sheegtaa taariikhda hijriyada taariikhda islaamka ee hijriyada qofkii tirsigeeda hirgeliyay taariikhda islaamka hijriga dhowr jeer baa la hirgeliyay balse qoraalkeeda waxaan malay xilliga khulafada in la hirgeliyay inta aan garanayo khulafada raashidiinta inta aan garanayo waka yaa hirgeliyay oo jideeyay oo yaani tirsigeeda taabageliyay taariikhda hijriga in la qoro in la tirsado ma oo la tirsado dhalashadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii laga soo bilaabo 571 ilaa 571 inta hadba la isku raacsan yahay markii laga soo tiriyo waxaa hirgeliyay khulafaa raashidiintii magaciisa balse ma garanayo ma xasuusto magaciisa ma garanayo magaciisa ma garanayo hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay isku daygaaga quruxda badan aad baa idinku mahadsantihiin الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل hagaag marka hore walaal waa ku soo dhaweynayaa adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya waa dhawe walaal magacaygu Cabdifataax Cabdillaahi Cabdifataax Cabdillaahi waa ku faraxsanahay maanta inaad barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV nagala qayb qaadatid oo qayb ka noqotid waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka waxaa taabagelisay suurtagelisay inuu qabsoomo shirkadda Abqo Company oo taageerayaasha iyo daawadayaasha Shakaal TV-na ugu talagashay inay ku abaalmariso su'aalaha qofkii haleelay jawaabta saxda ah kolka hore bal barnaamijka sidoo aragtaa barnaamijka aad iyo aad baan soo dhaweynaa aad iyo aad baan ku faraxsanahay shirkadda barnaamijka ay noo qabatay
hagaag su-aasha ugu horreysa haddaan ku weydiiyo waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaaladii uu ku dhashay halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan wuxuu ku dhashay magaalada Buuhoodle Balli u dhow Buuhoodle Balli u dhow saac Madeeqa la dhaho hambalyo ayaan ku leeyahay jawaabta saxda ayaad haleeshay waxaanad mudatay abaalmarinta ay kugu talagaleen Shakaal TV iyo sidoo kale shirkadda Abqo haatanna waxaa ku guddoonsiinaya abaalmarintii lagugu talagalay iga guddoon ugu horreyn sabcis ugu dhuftaa sabcis hagaag aad baad u mahadsan tahay bal marka hore dareenkaaga alxamdulillah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad ku guulaysan karto aad baan ugu faraxsanahay bal soo saar waxa meeshan ku jira sug hafurin laakiin soo saar hagaag ku cisho waxaan rajaynayaa inaad gurigaaga la tagtid wixii kaaga soo baxana aad bacdal afur arki doontid ama xilliga aad furtid aad gurigaaga la tagtid bal ugu dambeyn maxaad leedahay shirkadda Abqo iyo Shakaal TV iyo sidoo kale ciddii taabagelisay kuguna soo tala gashay hadiyadda qaaliga waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana ku bogaadinayaa arrinkaas shirkadda Abqo iyo Shakaal TV hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad leedahay daawadayaasha iyo dhammaan ummadda muslimiinta ee ka daawanaysa muuqbaahiyaha Shakaal TV waxaan leeyahay ha lagu xidhnaado Shakaal TV hagaag aad baad u mahadsan tahay الحمد لله أنعمنا على دين الإسلام وفضل كبير الحمد لله waan filayaa inaad ka soo wada bogateen barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee Shakaal TV su'aalihii aan hor dhignay shacabka ku dhaqan caasimadda deegaanka ee Soomaalida ee kala duwanaa abaalmarinada aan guddoonsiinay guulaystayaasha iyo waliba kuwa iyagu aan su'aalaha haleelin sidii ay uga qayb qaadanayeen quruxda badneed inaad ka soo wada bogateen ayaan filayaa waa anigoo Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Turi soo saaraha barnaamijka intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ramadaan Kariim ربي ونبينا كالقعيل كنور كيسا نغبوحي قلوبتا